federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxa ay saacadihii la soo dhaafay howlgallo ka sameeyeen deegaano hoostaga degmada Buur-Hakabe ee gobolka Baay. Deegaanadaasi oo ay ku sugnaayeen Al-Shabaab. Deegaanada howlgalka ay ka sameeyeen ciidamada waxaa ka mid ah deegaanka Buur-Haybe iyo tuulada Wafdhaay oo ka tirsan deegaanada hoostaga degmada Buur-Hakabe ee gobolka Baay. Inta uu socday howlgalka, ciidamada waxa ay ku soo qabteen rag ka tirsan Shabaab iyo hub ay isticmaalayeen. taliyaha ururka degmada Buur-Hakabe Ibraahim Maxamed Ibraahim ayaa waxa uu sharaxaad ka bixiyay howlgalkan iyo ujeedkiisa. howlgal oo xalay degmada Buur-Hakabe agaarsha lagu fuliyay oo meel qawaarijiinta oo fadhiisha xalay weerarka qaadnay oo Buur-Heled meel 15 kilomitir jarta qawaarijiinta haleyni lama gor iyo boosisho furnay 15 qofna ka dhimatay. howlgalka maalin gudoomiyaha degmada Buur-Hakabe ee maamulka Koonfur Galbeed Maxamed Ibraahim ayaa sheegay in ciidamada ay sii wadi doonaan howlgallada ay kula dagaalamayaan Al-Shabaab inta ay kaga bixinayaan deegaanada hoostaga degmada Buur-Hakabe. meelnamanka nabaadiidka adowga oo fadhiista meesha Hayti yaa ku weerareen Ilaahay ma hadla shukrulle xagee baadil jumma sida sanaga haytan Ilaahay ma hadla ciidamadii iyo nabadiyo gabaha nagadan araga haytan adowguna wala hogan laha kufurdi waa dad oonayto diidan ummadda islaamka iyo noolaadeen waay wala badal amrishay aragnay ma in la maso dilaw sida tariyatin sheegi may diyaarana hamin imaalan inuu nafsadaan in maalkan uu xorna sidii adowga ummadana ku qabad lahay oo noolala diidan walba diidan si wadanka degmadan Buur-Hakabe agaaraheed loo ku xoreeyo fadi ya ciidamada qorshaysan. Cabdullaahi Nuur Aadan TV-ga caalamiga ee SAB TV magaalada Baydhabo.